degdeg qarax hoggan ayaa haddeertaan ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho. Faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warbixintaas oo faahfaahsan, balse daawada intaanan u gudagelin haddii aad naga soo booqatay barteena Facebook-na soo follow garay, muuqaalkan like garay oo u share garay saaxiib adiga oo kale oo aad ku mahadsan tahay la socodkaada. Faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho. Wararka aynu ka helayno wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye ayaa ku waramaya in qarax khasaare geystay uu halkaasi ka dhacay. Qaraxa oo ahaa miina nooca dhulka lagu aaso ayaa lala beegsaday kolonyo uu la socday sargaal sare oo ka tirsan ciidanka xoogga. Sargaalkan ayaa lagu magacaabaa Xasan Jaamici. Wararka waxa ay tilmaamayaan in sargaalkan uu dhaawac ka soo gaaray qaraxaasi, isla markaana loo soo qaaday dhaawiciisa magaalada Muqdisho si loogu dabiibo isbitaalada magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaa jira khasaare kale oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac intaba oo soo gaaray ciidankii uu watay sargaalkan iyo dadkii goobta ka agdhawaa, walow aan si rasmi ah loo xaqiijin karin khasaaraha rasmiga. Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay laamaha ammaanka oo ku aadan khasaaraha ka dhashay qaraxan ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho.